بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اي كواجبتay in ay ridiyaan salaantaasi waxaanu qaadanaynaa buugga New Concept English Book Practice and Progress casharkiisii saddexaad ee ciwaankiisu ahaa Please send me a card ee u diyaar garooba Please send me a card. Postal cards always spoil my holidays. Last summer I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postal cards. My holidays passed quickly, but I did not send any card to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Please send me a card. Fadlan ii soo dir kaartaliini ama kaar. Kaar waa iska kaar caadiya. waa warqad kaara lagu feegaaro weeye oo macnihii lagu madadaalo waa turubku la mid yahay kaad mararka qaar xataa turubkay dhahanba balkan la ciyaaro ee turubka ah qamaarka oo kala casharka kan waxa uu ku dhisan yahay mudane ama marwo tenniska simple bus tennis ayuu ku dhisan yahay oo tenniska saddexaad ee afka Ingiriiska ah marka casharka waanu sharaxaynaa aad ula soco postcards way postcards ragga postaalayaasha kaararka ama kaartiliinayaasha way postcards kaartiliinayaasha always had iyo goor spoil waxay khasaarshaan ama ay ku ciyaaraan my holidays fasaxyadaydii way ku ciyaaraan raggaasu fasaxana aad buu qaali uga yahay dadka reer galbeedka ah xagooga last summer xagaagii la soo dhaafay anigu went to waxaan aaday buu yiri Italy wadanka Talyaaniga ayaan aaday I visited waxaan booqday buu yiri museums madxafyo ayaan booqday madxafyo inaan baranaa muhiim ah madxaf waxa la yiraahdaa af carabi weeye haddaan khaldanayn ereygaasi hadda madxaf goobta ama dhismaha shayaasha taariikhiga ah la isugu geeyo oo dadku ay u daawasho tagaan ay galaan ay booqdaan halyeeyada iyo ma arkaysa shayaasha taariikhiga ah iyo wixii la midka ah weeye I visited waxaan booqday buu yiri museums madxafyada ayaan booqday and sat in isla markaana waxaan dhex fariistay public gardens jardiinada ama fagaarayaasha dadka uu ka dhaxeeyo haddii si kale aan u dhigo public waxa weeye bulshada weeye meesha ay ka dhaxayso gardensna waxa weeye jardiin af Talyaani weeye jardiin laakiin meelaha la fariisto weeye haddii Talyaani kale oo af Soomaali aan u dhigana public gardens waa tirabuunada dadka ay isugu yimaadaan tirabuun waxa weeye meesha dadka uu ka dhaxeeyo weeye oo overpopulated ka ama overcrowded ka I visited waxaan booqday buu yiri museums madxafyo ayaan booqday markaan Talyaaniga tagay aan sat in isla markaana waxaan fariistay buu yiri public gardens jardiinada ama tirabuunada ama goobaha dadka bulshada ay isugu timaado uu ka dhaxeeyo ayaan dhex fariistay a friendly waiter cavalieri bashash ah friendly waxa weeye friendly bay ka timaaday friendly waa saaxiib friendly waxa weeye furfuran ama bashash ah weeye waiterna waa cavalieri aba Talyaani ah adeega weeye af Soomaaliga adeega maqaayadeed xataa ka dhig a friendly waiter adeega bashash ah cavalieri furfuran ayaa taught me aniga wuxuu i baray a few words xoogoo erayo ah of Italian ee afka Talyaaniga ayuu i baray then kadibna markii uu i baray xoogoo Talyaani ah cavalierigaasi bashashka ah he isagu lent me wuxuu aniga i daynshay ama uu amaahiyey
ama uu ii dhiibay ama tabal ahaan uu iigu dhiibay buug buu tabal iigu dhiibay tabal aan isla garanay ereygaasi dadka qaar way yaqaanaan badi tabal waxaa la yidhahdaa wixii inta aad qaadato ama lagu dhiibo aad dib u soo celisid ma waadan arkin dhalinta soomaaliya gudaheeda marka la joogo dhalinyarada iska shiidka waxay ku leeyihiin anigu tabal ayaan ku aroosay markaan aroosay waxba ma haysanin alaabta tabalay ahayd waaba lagu aroosaa shukaansiga marka wiilasha qaar ay shukaansanayaan wax ma haystaan shay sokaa ma haysta xataa wuxuu leeyahay saaxiib surwaalkaaga iyo shaarkaaga iyo fanaanadaada cad ii dhiib tabalee buu leeyahy weliba xariif meeshaanaan rabaa inaan dhulka la gooyo kuleeyahy ilaahow rabbiyo yaanan lala goynin ilaahow naga bixi waayo ya markaasuu dharkii ku labisanayaa kadibna markuu shukaansigiisa soo dhamaysto isagoo qof kale iska dhigaayo oo labisan oo xaragoonaya hawshiisa markuu soo dhamaysto oo cadowgu iska jabiyo waa kaa sidoo kale xataa waaba laisku ogaadaa arooska waaba laisku aroosaa tabalka gabadha iyo wiilka soomaaliya mararka qaar iyagoo isku ogyin soo dooranayaan kadibna waxa weeye wuxuu leeyahay hala isiyo alaab tabala saaxiibayaal oo wareeg ah 7 aan cadowga isaga jabino aniga saaxiibtay marka dadka ay yimaadaan waa ceeb in gabadhii oo ila jiifta darin kaliya waa laga fiican laakiin dadku waa inay arkaan saaxiibada arooska ilaan caruus waa la soo booqdaaye wareeg iyagoo ku jiifa iyo wixii la mid ah marka tabal waa wax inta lagu dhiibaa soo celisa lendi weeye baarow buu wax yar ka daba dhow yahay eragaas marka wuxuu yidhi then kadib hiid kabalyeerigaasi bashaashka ah lentimi wuxuu aniga ii dhiibay buug ayuu aniga ii dhiibay I read waxaan ka akhriyay a few lines xoogaho sadaro ama layman ah ayaan ka akhriyay buuggii but laakiinse aan ka akhriye I did not understand ma aanan ka fahmin a word erey kama aanan fahmin si kastoo aan u akhriyay every day maalin kasta I anigu thought about waxaan ka fakari jiray postcards kaartiliinilayaasha ayaan ka fakari jiray maalin kasta maxaan uga fakarayaa my holidays fasaxyadaydii past waxay ku gudbeen ama ay ku qulquleen weekly si degdega ayay ku qulquleen maadaama fasaxyadaydu si degdega ay ku baxeen ay ku dhammaadeen kaartiliinilayaashaan ka fakari jiray but laakiinse I did not haddana ma aanan send ma aanan u dirin any cards wax kaaroo aan qoray uma dirin to my friend saaxiibaday anoo macnii waqtigaygii iyo holidaygaygii uu qaatay kaartaliini haddana wax kaara saaxiibaday umaba dirinba on the last day maalintii ugu dambaysay I made anigu waxaan samaystay a big decision go'aan weyn macnaheedu waxay tahay I made waxaan qaatay baad ku macnaynaysaa waxaan qaatay a big decision go'aan weyn decision waa go'aanka big weyn weeye I got anigu waxaan aan toosay early aroortii hore ayaan toosay and both waxaana soo iibsaday 37 cards 37 kaarar ah ama 37 kaararaan soo iibsaday maalintii ugu dambaysay I spent anigu waxaan geliyey ama aan ku qarash gareeyey the whole day maalintii oo dhan waxaan geliyey in my room maalintii oo dhan waqtigaan lahaa weeye waxaan geliyey qolkaygaan gashaday meel ma aadin weeye but laakiinse I did not anoo maalintaydii oo dhan ama waqtigaygii oo dhan aan geliyey qolkaygii oo meelba aanan aadin haddana I did not write ma aanan qorin a single card hal kaarna ma qorin waa cajiib I bought 37 cards ma ku aragtaa sawirka waxaan soo gatay 37 kaar ahmiyadiisi weeye qof 37 kaar soo gatay oo haddana intaasi macnihii taagnaa bal ka waran waa cajiib soomaan marka waxaan leenahay postcards kaartiliinilayaashu always had iyo goor spoil waxay ku ciyaaraan my holidays fasaxyadaydu way ku dheelaan raggaas last summer xagaagii la soo dhaafay I went to Italy anigu talyaanigaan aaday I visited waxaan booqday
museums madxafyo ayaan booqday and sat in waxaana fadhiistay public gardens meelaha dadka isugu yimaadaan ama tribunaadka dadka a friendly waiter cavalieri bashaasha ama adeega bashaasha ayaa taught me aniga wuxuu i baray a few words xogoo erayaha of Italian oo afka Talyaaniga ah then kadibna he lent me wuxuu aniga qofkaasi tabal ahaan ii siiyey a book buu ii dhiibay I read waxaan ka akhriyay a few lines xogoo sadara ayaan ka akhriyay buugaasi uu qofkaasi cavalieriga ii dhiibay but laakiinse I did not understand kama aanan fahmin a word eray every day maalin kasta I thought about waxaan ka fakari jiray postcards raggan kaartaliiniga xambaara ama ku shaqada leh ayaan ka fakari jiray my holidays fasaxyadaydu passed quickly sida ugu dhaqsiyaha badan bay igu dhaafeen but laakiinse I did not send mana dirin any cards wax kaarara uma aanan dirin to my friends saaxiibaday on the last day maalintii ugu dambaysay I made a big decision anigu go'aan adag ayaan qaatay I got up waxaan anigu toosay early aroortii baan toosay and bought waxaan soo iibsaday 37 cards 37 kaarara baan soo iibsaday I spent waxaan geliyay the whole day maalintii oo dhan in my room qolkaygii but laakiinse I did not write mana aanan qorin a single card hal kaarna ma aanan qorin waaya tenniska jumlad kasta waa inaan sheegnaa markaasi haddana postal cards always spoil my holidays waa simple past tense last summer I went to Italy waa simple past tense I visited museums and sat in public gardens waa simple past tense laba jumladood oo hal isku ah weeye a friendly waiter taught me a few words of Italian waa simple past tense he lent me a book waa simple past tense I read a few lines waa simple past tense but I did not understand a word waa simple past tense every day I thought about postcards waa simple past tense my holidays passed quickly waa simple past tense hoosta ka xariiqo but I did not send any cards to my friends was simple past tense on the last day I made a big decision was simple past tense I got up early and bought 37 cards was simple past tense I spent the whole day in my room was simple past tense but I did not write a single card was simple past tense erayada inaan fahamno loo baahan yahay bastiga waxa weeye aan ku sheega marka went hoosta ka xariiqo basti weeye visited basti weeye sat basti weeye taught basti weeye teach bay ka timaaday waa irregular verb lendi bay ka timaaday oo amaahinta ama tabalka ah hoosta ka xariiqa basti weeye hadda read sidaanay basti ku tahay presentina ku tahay perfectina ku tahay waxaa ku saaray did do iyo das bay ka timaaday basti weeye thought waa think bay ka timaaday ka fakeridda ama malada ama dano thought think weeye irregular verb waa did do bay ka timaaday saan kuu sheegay bas bay ka timaaday best basti weeye made make bay ka timaaday samaynta ah allahu mustacaan spent waxay ka timaaday spendy waa irregular verb boat waxay ka timaaday by did hadde do weeye meesha ay ka timaaday waa basti did kasoo gudub comprehension braces fahan gaaban and composition iyo curus weeye waa fahan gaaban iyo curus comprehension braces fahan gaaban and composition iyo curus weeye answer ka jawaab these questions su'aalahan ka jawaab baa lagu leeyahay in not more than inaan ka badnayn 50 words konton eray waxaan kaga badnayn kaga jawaab konton eray waxaan ka badnayn kaga jawaab 45
46 47 48 49 ilaa 50 waa la qaadan karaa 41 42 43 44 40 sorry waxaan dhihi lahaa 45 46 47 48 49 iyo 50 laakiin 45 wixii ka hooseeya lama qaadan karo haddaa la timaado 46 ama 47 48 49 ilaa 50 okay waa ka wada shaqaynaynaa keligaa laguguma daynayo welimaada qaan gaaray do postcards miyay kaartilinilayaashu always had iyo goor spoil ay ku dheelaan ama ay khasaarshaan the writers holidays fasaxyada qoraaga or not misamaya maxaan leenahay waa composition waxa loo baahan yahay waxaan leenahay postcards kaartilinilayaashu always had iyo goor spoil waa ay ku dheelaan ama ay khasaarshaan the writers holidays fasaxyada ninka qoraaga ah jawaabta waxaan leenahay postcards always spoil the writers holidays sidaasaa saxan labo weer xaggeebaa did he spend xaggee buu isagu geliyey his holidays fasaxyadiisu last summer xagaagii lasoo dhaafay waa qoraaga waxaan leenahay he isagu spent wuxuu geliyey his holidays fasaxyadiisii in Italy gudaha waddanka Talyaaniga jawaabta saxan waxa weeye he spent his holidays last summer waqtiga he spent his holidays in Italy last summer weeye saddex what maxaa did he isagu think about maxaa uu isagu ka fakeri jiray every day maalin kasta waa ninka qoraaga muxuu ka fakeri jiray he isagu thought about wuxuu ka fakeri jiray postcards kaartilinilayaasha ayuu ka fakeri jiray every day maalin kasta waxaa saxan he thought about the postcards every day afar did he isagu sendi ma diray any cards wax kaarara ma u diray to his friend saaxiibadiisa wax kaarara ma u diray or not mise uma uusan dirin waxaan leenahay he isagu did not send uma uusan dirin any cards wax kaarara uma dirin to his friend saaxiibadiisi waxaa saxan he did not send any cards to his friends how many cards shan imisa kaarar ah did he buy uu soo iibsaday ama uu soo gatay on the last day maalintii ugu dambaysay waxaan leenahay he bought wuxuu soo iibsaday 37 cards 37 kaarar ah ayuu soo iibsaday on the last day maalintii ugu dambaysay waxaan leenahay he bought 37 cards on the last day number 6 weer xageeba did he isagu stay uu joogay all day maalintii oo dhan xaguu joogay waxaan leenahay he isagu stayed wuxuu joogay at his room qolkiisii ayuu joogay all day maalintii oo dhan waxaan leenahay mar kale he stayed in his room all day number 7 did he isagu write ma wuxuu qoray any cards wax kaarara miyuu qoray or not mise ma uusan qorin waxaan leenahay jawaabta he isagu did not write ma uusan qorin a single card hal kaarna ma uusan qorin ninkaas he isagu did not write ma uusan qorin a single card hal kaar ma uusan qorin marka adiga tirso waxaaga isku dhufso markaad tirsatid waa in laga helaa 50 ilaa iyo 45 inta u dhaxaysa
key structures furayaasha dhismooyinka. What happened? maxaa dhacay? waxaanu ku samaynaynaa dhugashaan ku samaynaynaa casharka markaan bilaabaynay. waxaan sheegay casharka markaan bilaabaynay in uu casharkan ku dhisan yahay simple past tense, tenniska saddexaad ee afka ingiriiska. What happened tan meeshaan hadda taalla aad aragto maxaa dhacay weeye ay ujeedaan hadda, laakiin ujeeddadu waxa weeye wixii dhacay ee basti ah ayaa la rabaa in sheeko laga sameeyo, isla markaana tennis ahaanna inay u taagan tahay ogaatid waxa kan soo socdaa inay yihiin wax dhammaaday oo dhacay. read akhri baa lagu yidhi this short conversation, wada sheekaysiga kan ee gaaban akhri. short maxaa ku taqiinay? waa gaabnaan soo ma ahan? haa. read akhri this short conversation, wada sheekaysiga kan ee gaaban akhri. bay dhiib ama bixi weeye. bay bixi. close u dhowaansho bixi. attention taxaddar u dhowaansho ah bixi. macnaheedu bay close attention marka la isku qabto iska jir weeye, iska fiiri, iska eeg, iska dhow, intaba way noqonaysaa. bay close attention, aad uga taxaddar baa lagu yidhi to the verbs, ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira ka taxaddar. each of mid kasta oo ka mid ah these verbs, ficilada tan mid kastoo ka mid ah waa kuwa farta yaryar ee ku jira ee tells us, mid kasta oo ka mid ah ficiladaasi farta jiifjiifta ku jira mid kastoo ka mid ahu tells us wuxuu noo sheegayaa what happened, basti wax dhammaaday oo dhacay ama wixii dhacay ayuu noo sheegayaa. marka macnihii qoraalka jiifjiifa iska ilaali, iska eeg, iska dhow, iska fiiri, iska dhugo. read akhri baa lagu yidhi this short conversation, wada sheekaysigan gaaban akhri. bay close attention, ka taxaddar baa lagu yidhi to the verbs, ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira. each of mid kasta oo ka mid ah these verbs, ficiladan tells us, mid kastaoo ka mid a ficilada tan ee farta jiifjiifta ku jira waxa uu inoo sheegayaa what happened, wixii dhacay. sheeko ayaa meeshaan marka maraysa. sheekaa lagu dhisay. sheekadan halkan lagugu dhisay waxaa la rabaa in lagugu baro tenniska saddexaad jumlada ku jira. marka sidaa darteed sheekadana dhuux, wixiina wax dhacay inay yihiin arag, farta jiifjiifta macnihii haddaad doonto qalin rasaas ama qalin qor ama qalin qori hoosta kaga xariiqo sidaad kari kadhaba. policeman, nin booliisa ayaa hadlaya. sheekadan waxay dhex maraysaa nin booliisa iyo qof caadi ah. ninka booliiska waa dembi baare. policeman, did you adigu ma aragtay buu yidhi. did you see adigu ma aragtay buu yidhi. the accident, shilka ma aragtay. see mudane shilka ma aragtay. nin baa loo yimaaday, nin blacea u yimaaday, wuxuu yidhi mudane shil meeshaan ka dhacay ma aragtay. shilka ma aragtay. man ninkii wuxuu ku jawaabay ama uu yidhi yes, haa buu yidhi. I did, waan arkay. waan arkay buu yidhi. the driver, dareewalka of that car ee gaarigaasi aad aragto ee xagga yaalla. dareewalka gaarigaasi, dareewalka ee gaarigaasi ayaa gaarigu hit waxa uu ku dhiftay. hit waa ku dhifashada. hit waxa uu ku dhiftay that post, birtaasi over ee ku taalla there halka. macnihii birtaasi xagga sudhan ayuu ku dhuftay dareewalka gaarigaasi. sidaasay wax u dhaceen buu yidhi. I did, haa buu yidhi waan arkay shilka suu u dhacay. wuxuu yidhi the driver, dareewalka ama wadaha of that car, gaarigaasi wadihiisii ama dareewalkiisii ayaa dareewalkaasi hit waxa uu ku dhiftay baabuurka
ama gaariga that post birtaasi over ee ku taala there halkaa birtaasi xagga suudhan ayuu ku dhuftay policeman wuxuu yidhi marka hadday intaasi dhacday oo ninka dareewalka uu birtaasi ku dhuftay gaariga what happened maxaa dhacay haddana markay sidaasi man wuxuu yidhi a dog boolisow dhegaysuu yidhi ayaa ran cararay across istallaab u cararay the road waddada istallaab macnihii baa waddada jaray weeye marka run across waxaa weeye jaris weeye ama gooyin a dog ayaa run across orod ku jaray the road waddada baa waddada orod ku gooyey and the driver dareewalkiina markii eyga uu waddada ku jaray dareewalkiina tried wuxuu isku dayay to avoid in uu ka fogeeyo ama uu ka leexsho ama uu ka xakameeyo eyga gaariga macnihii baa waddada jaray buu yidhi orod ku jaray dareewalkii gaarigana wuxuu isku dayay in uu ka badbaadsho ama wuxuu isku dayay inuu ka fogaado eygaas inuusan gaarigiisu taaban oo macnihii uusan ku dhicin haddaba the car gaarigii ayaa suddenly isla markiiba ama durbadiiba came gaarigiiyaa durbadiiba came yimid buu yidhi towards ku aadka ama tooska me aniga ayuu si toosa gaarigii igu yimaado buu yidhi macnii ninkan wuxuu leeyahay ayaa waddada orod ku jaray dareewalkiina wuxuu isku dayay inuu gaarsiinin gaarigiisaasi eyga oo uu ka badbaadiyo uu ku talagalay isku dayay gaarigii si dhaqsi leh ayuu aniga igu yimaaday marka gaarigii markii aniga uu igu yimaaday climbed gaarigu wuxuu fuulay buu yidhi wuxuu dul fuulay the pavement marshabiyadiska ayuu dul fuulay gaariga marshabiyadis waxaa la yidhahdaa meesha waddada macnihii way qaybsan tahay qaybna dadka ayaa mara qaybna waxaa loogu talagalay baabuurta ama gawaadhida meesha dadka loogu talagalay waxaa la yidhahdaa pavement marshabiyadis gaarigu climbed wuxuu fuulay to the pavement marshabiyadiskii ayuu fuulay and crushed wuxuuna gaarigii uu jajabshay ama uu ku dhacay ama uu ku burburay into that post macnihii birtaasuu burburiyey waa sheekada la soco policeman ninkii booliiska wuxuu yidhi what did you do marka niyo markii sidaas ay dhacday adiga maxaa samaysay man wuxuu yidhi anigu run across aniguna orod baan ku gooyey the street waddadii after ka gadaal the dog eyga markuu waddadii orod ku jaray anigana waddadiiaan orod ku jaray waa issii dacay policeman wuxuu yidhi why sababteeba did you do aad u samaysay that sidaasi maxaad u samaysay sidaasi oo macnihii waddada orod ugu jartay were you afraid of adiguma waxaad ka baqaysay ama aad ka cabsanaysay the car adiga ma gaarigaad ka baqaysay maxaad adigana waddada orod ugu goysay eyga la garay ninkii wuxuu yidhi anigu wasn't afraid of anigu kama aanan cabsanayn buu yidhi ama kama baqaynin the car gaariga kama aanan baqayn buu yidhi booliisow anigu was afraid of waxaan ka cabsanayay ama aan ka baqayay the driver dareewalka ayaan ka cabsanayay ama wadaha gaariga the driver ayuu yidhi dareewalku got out waxa uu ka soo degtay of the car baabuurka ayuu ka soo degay buu yidhi and began wuxuuna bilaabay shouting at me in uu aniga igu qayliyo ninkaa isaga ah dareewalka aniga igu qaylinayaahu was very angry aad buu u xanaaqsanaa with me aniga ayuu aad igu caraysnaa buu yidhi aad buu igu xanaaqsanaa you see adigu waad aragtaa buu yidhi waxa falka kaasi geystay was wuxuu ahaa my dog eygayga dhibkan oo dhan eygaygaa keenuu yidhi marka meeshan waxaan ka barannay inkastoo dhacdada tennis saddexaad ay wada tahay in shil uu dhacay shilka markuu dhacayna nin booliisa uu yimaaday
ninka booliiskana ninkan uu arkay baabuur uu jajabiyey waddada intuu ka baxay uu jajabshay bir meel ku taagan oo dadku ay maraan waddadii dadka ay mareen ay ka mid ka ahayd sidaasi owgeedna ninkan macnihii dhibkan oo dhan ninkan meesha taagan eygiisa uu sababta lahaa waayo ninkan ey inuu lahaa baan meeshan ka baranay eygiisii isagoo wada socda eygiyaa waddada orod ku jaray orodka markuu ku jaraayo baabuur baa soo galay baabuurkana wuxuu damcay dareewalka inuu ka fogeeyo wuu xakameyn waayey isagoo eyga ka badbaadinaya baabuurkii marshabiyadiisku la fuulay biruu ku dhacay wuu jajabshay ninkii yaa soo degay ninkii horta intuu soo degin wuu cararay ninkan waddadii isagana orod ku jaray wuu fakaday eygii ka daba cararay marka sababtu uu cararana waxay ahayd ninkan kama uusan baqayn gaariga ee wuxuu ka baqayay ninka dareewalka ah oo baabuurka ka soo degay oo caraysnaa maxaa yeelay waxaa dhacdadan geystay oo waddada orod ku jaray oo shilkan oo dhan sabab u ahaa eygiisuu ahaa sidaas weeye marka casharka haddii mar kale aan ku celiyo what happened maxaa dhacay read akhri baa lagu yidhi this short conversation wada sheekaysigan gaaban akhri bay close attention ka taxadar baa lagu yidhi to the verbs ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku jira each of these verbs mid kastoo ka mida ficilada kuwa kan talis as waxay inoo sheegi doonaan what happened wixii dhacay oo baasti loola jeedo policeman nin boolisa iyo nin baa sheeko ay dhex maraysaa did you see ma aragtay the accident shilka ma aragtay saa mudane man yes ha buu yidhi I did waan arkay the driver dareewalka of that car ee baabuurkaasi ayaa hit that post waxa uu ku dhuftay gaariga birtaasi over there ee halkaas sudan policeman what happened maxaa dhacay kadibna man a dog baa run across orod ku jaray the road waddada and the driver dareewalkana tried wuxuu isku dayay to avoid it inuu ka fogeeyo eyga gaariga the car gaarigu suddenly durbadiiba came towards wuxuu si toosa ugu yimaaday me anigu si toosa iisoo abbaaray gaarigii it climbered on gaarigu wuxuu dul fuulay ama uu koray the pavement marshabiyadiiskii ayuu fuulay and crashed into wuxuuna jajabshay gaarigii that post birtaas waxaa ka sudan police what did you do maxaa samaysa marka arrintaa markay dhacday man I run across orod baan ku jaray the street waddada after the dog eyga kadib policeman why did you do that maxaad saas u samaysay maxaad waddada orod ugu jartay were you afraid of the car ma gaarigaad ka cabsanaysay man I wasn't afraid of kama aanan cabsanaynin ama kama baqaynin baqdin kama aanan igama haynin the car gaariga I was afraid of waxaan ka cabsanayay the driver dareewalka the driver dareewalku got out wuxuu ka soo degay of the car gaariga and began wuxuu bilaabay shouting at me inuu aniga igu qayliyo he was very angry with me aad buu igu caraysnaa you see waad aragtaa it was my dog waxa shilkan geystay eygaygu ahaa hadda anigu eygayga maahan ogaada anigu ey malihi waa cashar meeshan ku qoran qof laga sheekaynayo eygiisi weeye exercises layliyo waxaa lagu yidhi look at fairy baa lagu yidhi look at fairy the passage qormada fairy please send me a card fadlan kaar ii soo dir qormadan fairy bud dhig baa lagu yidhi a line sadar ama xariijin dhig xariijinta under waxaad hoos dhigtaa all the verbs dhammaan ficilada xariijin hoos dhig ficilada waa kuwa xariijinta hoos la dhigaayo which kuwaasoo tell us annaga inoo sheegaya what happened bastiga ama wixii dhacay ee ku dhacay the writer qoraha ninka qoraaga wixii ku dhacay macnihii ficilada inoo sheegaya ee wax dhacay ee ku dhacay qoraha wixii ku dhacay inoo sheegaya hoosta ka xariiji goormay ku dhaceen waxaasi when goortii he was on holiday goortii uu fasaxa ku joogay in Italy gudaha waddanka Talyaaniga look at fairy baa lagu yidhi the passage qormada fairy please send me a card fadlan kaar ii soo dir casharkii aan soo qaadanay baa la rabaa in lagu imtixaamo ogsoonow bud dhig baa lagu yidhi a line waxaad dhigtaas
xariijin under all the verbs dhammaan ficilada which ficiladaasoo tell us annaga inoo sheegaya what happened to wixii ku dhacay the writer qoraha when goortii he was on holiday goortii uu fasaxa uu u joogay in Italy gudaha waddanka Talyaaniga. B. Give C baa lagu yiri the correct form. Waxaad siisaa qaabka saxda ah C of all the verbs. Dhammaan ficilada oo dhan qaabka saxan C ficiladaasoo in brackets ee qowseenka ama goobaha ku jira. Give C baa lagu yiri the correct form. Qaabka saxan C of all the verbs. Dhammaan ficilada in brackets ee qoyseenka ku jira. macnihii ficilada goobaha ku jira oo macnihii qoyseenka ku jira qaabka saxan u dhig baa lagu yiri. Do not refer ha tix raacin baa lagu yiri ama ha jaleecin ha qishin baa lagu yiri. dabagal ha ku samaynin ha fiirinin to the passage qormada ha fiirin baa lagu yiri. waa qormadii casharka qormadiis meeshuu ka soo bilowday ha fiirinin until ilaa iyo finish adigu aa ka dhamayso the exercise layliga ilaa iyo layliga hadda lagu diray ee kan hoosta aad u jeedo aad ka dhamayso qormadii please send me a card casharka meeshuu ka bilaabanayay ha dhuganin ha eegin ha fiirinin ha qishin. Give C the correct form qaabka saxan C of all the verbs dhammaan ficilada in brackets ee qoyseenka ku jira. Do not refer tixraac ha ku samaynin ha fiirinin ha eegin dabagal ha ku samaynin to the passage qormada until ilaa you finish aa ka dhamayso the exercise layligan kan ilaa aad dhamayso ha eegin qormada. marka waxaa lagaa rabaa adi inaad bedeshid laakiin waan iskaalmaysanaynaa maadaama soomaalida ay ku mahmahdo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ama gacmo wadajir bay wax ku qabtaan ingiriisigana uu yidhaahdo many hands make a light work. amaba si kale haddaan af soomaaliga ama mahmaadaasi u bedelaan u dhigno ilka wadajir bay wax ku gooyaan ona waa la dhihi karaa ama ili keliya hilib ma jaro waa la dhihi karaa. sidoo kale waxaa la dhihi karaa far keliya fool ma dhaqdo fish unbay kaa saadhaa. fishku haddee kalluunkii ma ahane waa baqbaqa dadka qaar baqbaq bay u yaqaanaan dadka qaarna fish ay u yaqaanaan dee af soomaaliga waqooyi koonfur weeye. okay last summer xagaagii lasoo dhaafay I anigu go to Italy Talyaanigaan aaday. ereygaasi goobaha ku jira in basti laga dhigaa la rabaa. hadda waxa weeye waxaan aadaa Talyaani bastiga waxa weeye went way. I went to Italy Talyaanigaan aaday weeye. I anigu visit waxaan booqdaa museums madxafiyo maxaan ka dhignaa visited aan ka dhigaynaa ereygaas. I visited waxaan booqday museums madxafiyo ayaan booqday. An sit waxaan fariistay baa laga rabaa. An sat weeye waxaan fariistay in public gardens jardiinada dadka isugu yimaadaan publicada ama tribuunka. A friendly waiter cavalieri bashasha teach me ayaa aniga ibaray baa laga rabaa. teach waxaan ku bedelaynaa taught ibaray i tacliimay. A friendly waiter cavalieri bashasha ama adeege bashasha koonfurta cavalieri ay dhahdaa adeegaha maqaayadda waqooyigana waxay dhahaan Soomaaliya waiter ay dhahaan haday doonaan adeegana waa la dhihi karaa af Soomaaliga saxda ah ka. A friendly waiter adeege bashasha ama cavalieri bashasha ayaa taught me wuxuu aniga ibaray a few words xogo erayo ah of Italian ee afka Talyaaniga ah. then kadibna he isagu cavalierigaasi lend me wuxuu idaymiyaa ama itabaleeyaa ama ii dhiibaa. basti aan ka dhigayna ereygaasi lendi bastigiisu waa lent. he lent me wuxuu ii dhiibay a book buu ii dhiibay. I read anigu waxaan akhriyaa sidaasay ku saxan tahay read mar walba hadday basta haddii kale saasay ahaanaysaa. I read waxaan akhriyay a few lines xogaha sadarro ah ama layman ayaan akhriyey but laakiinse I not understand xagee iska qaban lahday salaada. I did not understand way diidmada simple past tense anigu ma aanan ka fahmin a word erey. Every day maalin kasta I think about waxaan ka fekeraa
think baana laga rabaa inaan bedelno pastiga waxa weeye thought I thought about waxaan ka fakari jiray postcards kaartaliinalayaasha my holidays fasaxyadaydu baas waxay ku gudbaan quickly si dhaqsila ayay ku gudbaan baas baan bedelaynaa bastigu waa past ed past waxay ku gudbeen quickly si degdeg ah but laakiinse I anigu not send isma qabato miyaa I did not send uma aanan dirin weeye any cards wax kaarara uma aanan dirin to my friend saaxiibaday on the last day maalintii ugu dambaysay I make waxaan samaystaa ama waxaan qaataa isma qabato af Soomaaliga xataa waa ku qalad maalintii ugu dambaysay waxaan qaatay la garay laakiin maalintii ugu dambaysay waxaan qaataa aqli maahan make baan bedelaynaa marka made ka dhig sameeyey ama aan qaatay a big decision go'aan weyn I get up waxaan soo toosay ka dhig get waan bedelaynaa got ku bedel I got up waxaan soo toosay early aroortii hore and buy waxaan soo iibsaday ka dhig boat waxaan soo iibsaday 37 cards 37 kaarar ah I spendi waxaan ku geliyaa ama aan ku kharash gareeyaa spent ka dhig spendi I spent waxaan geliyey the whole day maalintii oo dhan waxaan geliyey in my room qolkayga but laakiinse I not write diidmada dhammaystir waxa ka dhigi kara pasti I did not write ma aanan qorin a single card hal kaarna taasi waxaan u malaynayaa waa la fahmay insha Allah c give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxan c of the verbs ficilada in brackets ee goobaha ama qoyseen ku jira c shaqada haddana shaqo kala soo socota waa saxaysa ficilada qoyseenka ku jira iyagana waxa weeye c oo sax sida saxda ka dhig give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxan c of the verbs ficilada in brackets ee qoyseenka ku jira in the passage below qormada hoose below waa hoos passage waa qormo qormada hoose ficilo waxaa soo socda goobo ama qoyseen ku jira qaabka saxan samee baa lagu yiri each verb ficil kasta must tell us waa inuu annaga noo sheegaa what happened wixii dhacay ujeedada waxa weeye ficil kasta pasti ayaa laga rabaa inuu noqdo weeye my friend Roy saaxiibkay Roy laakiin my friend garanay Roy my garanay friend garanay qormadii way socotaaye my capital laga bilaabay xaraf weyn Roy sababta looga bilaabay maxay tahay xaraf weyn isagu qoraalka guduhu ku jiray sababtu waxay tahay eray maahan Roy haddii aad aragto afka Ingiriisiga qoraal iyadoo uu socdo hadduu soo galo shay ka bilaabanaya xaraf weyn markaasi magac gaara weeye ma ahan eray iska fiiri Ingiriisiga waxa uu u yaqaanaa proper noun magaca qaaska proper noun kana naxw ahaan waxa la yiraahdaa proper noun tells particular names proper noun wuxuu sheegaa magacyada qaaska of people ee dadeed animal ee xayawaaneed things shayal haye an place iyo meel afarta xaba hadaan mid ka soo qaadano haddaan dhahan hadda Rajab school oo kale haddaan dhahno Rajab waa school walba ayaa mid Ingiriiska ku yaala mid Soomaaliya ku yaala mid America school waa school mid walba school uu noqon karaa laakiin Rajab waa school qolo gooni ay u leedahay way Rajab school okay hatta bilooyin badan baa jira bil kasta bil ah laakiin haddii la dhaho bilaha islaamka waxaa jira Rajab bil la yiraahdo haddaan khaldanayn Rajab haddii la yiraahdo bishaasi waa bil gooniya magac gooniya way ay iska leedahay bilaha ay ka duwan tahay haddii la caasho ka waran gabar waa gabar gabadhaada waa gabar gabadhaydu waa gabar walaashay waa gabar walaasha waa gabar laakiin haddii caasho la yiraahdo magac qaasa gabar ay leedahay way aniga aadan baa la yiraahdaa wiil baan ahay okay wiil kasta wiil buu noqon karaa midka America laakiin anigu aadan anaa iskale magacaasi anaa wata waa magac gaar ah waa proper noun haddaan soo qaadano xayawaanaadka oo kale deero waa deero laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa sac oo kale sac yani sac walba sac ama lo walba lo ah laakiin haddii sac loogu magac daro deero ka waran sacaygu waxa la deero haddaan dhaho deero markaasi
waa sax ka gooniya lo'da haye haddaan soo qaadano baabuurta ama casio saacadda oo kale saacado badan baa jira laakiin casio haddii la dhaho waa saacad ka gooniya saacadaha sidaas oo kale weeye roy horta marka proper noun my friend roy saaxiibkay roy died uu dhintay weeye died aa ka dhigay last year sanadkii lasoo dhaafay uu dhintay he leave wuxuu ka tegey baa laga rabaa he left me wuxuu iiga tegey his record player recordkiisii cajaladda lagu dhegaysto ayuu iiga tegey and his collection iyo isku dardarkiisii of gramophone records ee rikoordadiisa jiira digsiga ahaa rikoordhadan jiira digsiga waa rikoordhadii hore ee odayaasha ayaa yaqaana ee la isticmaali jiray cajalada loo isticmaali jiray oo marka uu wareeganayo sidii rati saliidda macsarada shiidaya oo kale isaga daba wareegana cajalada aad arkaysay waa gramophone records waa rikoordhadii hore iyagoo wareegana iska daba wareegaya sida digsiga baabuurka oo kale la arkay marka odayaashii hore ayaa ku takhasusay la weydiiyo roy ninka la yidhaahdo sbenta wuxuu geliyey a lot of money lacag fara badan ayuu gelin jiray on records rikoordhada he isagu buy way he bought wuxuu soo iibsan jiray one or two new records hal record ama laba record ayuu soo iibsan jiray every week sitimaan kasta ama isbuuc walba he never isagu went ma uusan aadi jirin go wenti ka dhig to the cinema shaleemada or mise to the theaterka ma aadi jirin isaga he stayed aleda wuxuu joogi jiray at home guriga ayuu iska joogi jiray ninkaasi every evening feed kasta and listen wuxuuna dhegaysan jiray unlistened wuxuuna dhegaysan jiray wey bastia ka dhigay to musicada he often isagu badanaa lent waa uu amaahin jiray ama tabal ayuu ugu dhiibi jiray rikoordhada ayuu tabal ugu dhiibi jiray to his friend saaxiibadiisa sometimes mararka qaarna markuu saaxiibadiisa rikoordhada uu u dhiibo oo macni tabal ugu dhiibo they iyagu saaxiibadaasi keep way kepti way u xanaanayn jireen them rikoordhadu u dhiibo he isagu lost way he lost wuxuu ku lumiyey many records rikoordho fara badan ayuu ku lumiyey in this way waddada tan ama wadiiqada tan ka gudub special difficulties waxyaabaha ugu adag ee qaaska ah he lent me a book buu aniga tabal iigu dhiibay instead of saying intaan dhihi lahayn he lent me a book buu aniga ii dhiibay we can say waxaan dhihi karnaa he lent a book to me aniga buugu ii dhiibay labada jumladood way saxan yihiin laakiin mid walba mid baa ka qurux badan he sent me a card aniga kaar buu ii soo diray intaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa he sent a card to me aniga kaaruu ii soo diray he passed me aniga wuxuu ii soo gudbiyey the salt cusbada ama milixda ama damcadda salta waxaa weeye af soomaaliga cusbo weeye qofba sibuu u yaqaanaa cusbo waxaa la yidhahdaa maal ma ahane maalkaagay ku macaysaa bay dhahan reer koonfurku marka salta waxaa weeye cusbo marna waxaa weeye af soomaaligu damcad marna waxaa weeye milix weeye he isagu bastimi wuxuu aniga ii soo gudbiyey the salt damcadda ama cusbada ayuu ii soo gudbiyey he passed the salt to me aniga ayuu milixda ii soo gudbiyey she bought me waxay aniga ii soo iibisay atay garan bay ii soo iibisay intaan dhihi lahayn waxaa ka sii macaan badan soo kama macaana naagtaydiyey kaalay soo kama macaan badna gacaliso kaalay gacalisadaydiyey soo kama sii fiicna haddana marka she bought me atay for me aniga garan bay ii soo iibisaa ka macaan she made me aniga waxay ii samaysay a cake doolsho waa af talyaani waqooyiga kayguu dhahaa soomaalida macnihi reer waqooyiga ah soomaalida reer koonfurtana waxay tidhaahdaa doolsho haddaba abwaanada af soomaaliga ku takhasustow waxaanu idin diraynaa noo raadiya doolsho eray af soomaali ku saxan she made iyadu waxay samaysay a cake for me aniga ayay cake ii samaysay ama doolsho ama bur jilicsan exercise layli right qor baa lagu yidhi each of mid kasta oo ka mid ah the following sentences mid kasta oo ka mid ah jumladaha soo socda in a different way waddo kala gedisan ama kala jaadjaad ah ama kala caynbacayn ah ama kala duduwan u samee baa lagu yidhi right u qor
each of the following sentences mid kasta oo jumladaha soo socdo ka mid ah in a different way wadiiqad kala duwan u samee adiga badbedel inta badan way saxayeen waa la fahmi karaa laakiin wax ka sii macaan kara raadi he paid wuxuu bixiyay the shopkeeper dukaanlihii some money in yaroo lacaga waxaan ka wanaagsan he isagu paid waa uu bixiyey some money in yaroo lacaga ayuu bixiyey to wuxuu siiyey the shopkeeper dukaanlaha saasaa saxan he paid some money to the shopkeeper number 2 he handed me aniga wuxuu i guddoonsiiyey the price abaalmarinta ayuu aniga i guddoonsiiyey waxaan leenahay he handed me he handed wuxuu guddoonsiiyey aan leenahay price the price abaalmarinta ayuu guddoonsiiyey to me aniga ayuu i guddoonsiiyey he handed the price to me 3 waxaan leenahay the waiter kabalyeriga ama adeeguhu barowt wuxuu soo qabtay ama soo qaaday a bottle of beer dhala qamri ah ayuu to the man ninka uu soo qaaday marka hadda anagu islaam baan nahay ilmaheena inaan ku tarbiyeyno qamre iyo qanziir ma ahane waxaan ku tarbiyeynaynaa caano anigu kolley caanaan ku bedelaya eragaas la soco waxaan leenahay the waiter kabalyerigu ama adeeguhu ee maqaayadda adeegaha kabalyeriga ah ama waiterku browt wuxuu keenay a bottle of milk dhala caanaha ayuu for u keenay the man ninka uu keenay waxa weeye the waiter brought a bottle of milk for the man 4 he sold wuu iibiyey all his books to me bugaagtiisoo dhan anuu ii iibiyey waxa weeye he sold all his books for me aniga ayuu ii iibiyey waa the shop assistant caawiyaha dukaanka jos wuxuu dooray some curtain material xoogaho qalab daah curtain material waa qalabka daah ee guryaha loo isticmaalo for me anigu ii dooray jumladaasi sidaasi waan ku day karnaa the shop assistant chose some curtain material for me oo ii dooray ha number 6 he did me a big favor asxaan weyn buu ii sameeyey he did a big favor for me aniga asxaan weyn buu ii sameeyey wey she showed her husband her new hat alla wanaag badanaa gabadhaasi allow ma ii noqoto gabadh muslim Soomaali ah alla daacadnimadu wanaagsana markay haweenayda ninkeeda ay wax kasto ay soo gadato ay u sheegto ninkan uusan waxba ka qarin way fiicantaa aad bay u wanaagsantaa aan la kala qarin ay tiraahdo hunna waxaan soo iibsaday ma arkaysa shaygaasi hunna saacad baan soo iibsaday adna ku soo iibiyaa ka sii fiican laakiin ninkana uu yiraahdo hunna sidoo kale laakiin su'aasha isweydiinta la waxay tahay naag muslimada koofiyad ma gasha kartaa taasi culimada diinta islaamka ku tagtaan u daynayna yaanan ku talax tagin waayo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bay ahayd aayada weydiiya dadka cilmiga u la shayga iyadu showed waxay tusisay her new hat koofiyadeeda cusub to her husband ninkeeday tusisay waa showed way tustay her new hat koofiyadeeda cusub to her husband ninkeeda 8 she promised waxay ballamisay a reward abaalgud ayay u ballan qaaday the finder helaha waxa weeye ninka wax soo hela macnii alaab luntay ninkii macnii soo hela waay helaha find ay ka timaad helida ah marka waxaan leenahay iyadu promised waxay u ballan qaaday a reward abaalmarin bay u ballan qaaday for the finder ninka helaha ah wax soo hela 9 isagu gave wuxuu siiyey his son wiilkiisa some advice xoogoo waana ah ayuu siiyey advice waa waanada waxaan leenahay he gave some advice to his son 10 his uncle adeerkiisu left him wuxuu uga tegay some money in yaroo lacaga waxaan leenahay his uncle adeerkiisu left wuxuu ka tegay some money xoogahoo lacagu uga tegay for him isaga 11 he is teaching wuxuu English to us annagu Ingiriisna barayaa
sidaasay ku sacantahay jumladaas uuna barayaaba he is teaching wuxuu barayaa English Ingiriis to us anaguna barayaa 12 I bought waxaan soo iibsaday this bunch xirmadatan of flowers ee ubaxyada ah for you adaan ku soo iibiyay jumlada saasay ku sacan tahay bunch waxa way xirmo weeye xirmo jaada oo kale marka leedahay wixii lamid ah bring soo qabo that bookgaasi to me aniga ii soo qaba please fadlan waxa leedahay jumladaasi bring soo qabo that bookgaasi for me aniga ii soo qabo waa 14 he offered me aniga wuxuu ii ballan qaaday a secret sigaar buu ii ballan qaaday aniga hadda sigaar waa bedelayaa waxaan ku bedelayaa honey he isagu offered me wuxuu ii ballan qaaday he offered wuxuu ballan qaaday isagu honey malab buu ballan qaaday for me aniga ii ballan qaaday honey malabka weeye waa HONEY honey gabdhaha Soomaaliyeed Soomaadan arkin honey baa loo bixiyaa niyo ha ka harin gabadhii honey loo bixiyay wixii loogu bixiyay qabtaa malabey weeye ha ka harin waxba ku duugane okay read akhri baa lagu yiri me aniga ii akhri the first paragraph waxaad akhrisaa qormada ugu horeysa ii akhri paragraph waa qormo waxaan leenahay read akhri the first paragraph qormada ugu horeysa for me aniga ii akhri weeye 16 I have ordered anigu waxaan amray some soup xoogaho maraqa ama food ah ayaan for you adiga ku amray sidaasaan ku day karnaa tan 17 I owe him isaga waxaan u ballan qaadayaa haye a lot of money lacag fara badan waxaa leedahay I owe anigu waan ballan qaadayaa a lot of money lacag fara badan ayaan for him isaga u ballan qaadayaa I owe a lot of money for him isaga lacag fara badan baan u ballan qaadayaa 18 baas soo gudbi the mustard bisbaaska ama basbaaska to your father aabaha u soo gudbi jumladaas masaasan ku daynaa baas gudbi the mustard bisbaaska for your father aabaha u gudbina waa dhihi karnaa sidan haddii lagu daayo laa baas laa taxsan walaa tuqaaf baas soo gudbi the mustard bisbaaska to your father aabaha bisbaaska u gudbi weeye haddii aad tidhaahdid baas gudbi the mustard bisbaaska for your father aabaha u gudbina way ka sii macaan tahay waxa weeye waxbay dhaamaan ma garanaysaa marka casharkeennii halkaas ayuu ku egyahay buuggii practice and progress casharkiisaasi saddexaad please send me a card ee ahaa fadlan kaartalini ii soo dir casharka kan waxaa inoo xigi doona kiisi kale ee afaraad isla buugga kan buug cashar kastaana wuxuu socon doonaa 1 saac oo kaamil ah mana ka yaraan doono mana ka badnaan doono idam alle waxaad casharada tan buugga new conceptiga practice and progress oo si free ah 5 qaaradood meel walbo aad ka joogtid adduunyada bad iyo beriba aad ka heli kartaa si lacag la'aana adoo la soo xidhiidha emailka addresskiisu yahay adam_increase@hotmail.com waa adam adam shiftiga qabo space increase increase@hotmail.com kadibna waxaad guddoomaysaa ama aad helaysaa cd-gii oo ku jira casharkii buugga new conceptiga practice and progress oo sharaxan marka naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa cabsida alle maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada sidoo kalena waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida alla ka cabsiga ayaan qof walba iyo naftayda u dardaarmayaa idim alle kulankiisana intaan casharka xiga aan kulmayno haddii nala kala qaato wuxuu adduune oo aan kala dhimanno ilaan daqiiqad walba waa inaad dhimanaysaa maanka ku haysaaye waxaa inoo ballan ah haddii ilaahayga awoodda sare leh u oggolaado jannatul fardowsa
waxaana idin leeyahay fardowsa